رئيسل وزراء لما قعابي وصح وان سنقيني أنا صاحب أنا حين مدلع روان وذا شقيني إني marka ra'iisul wasaaraha la magacaabay horta waxbarashadiisa ninka soo la wada sheegay haddana dugsiga sare xamar buu ka dhameeyay jaamacadana Yemen buu ka soo akhristay magisterka Malaysia ka soo dhameeyay aniga waxaan wada ahayn saaxiib jaamacadii Kismaayo yaanu labada annaduba yaanu ka ahayn maamulkeedii baan ahayn madaxweyne ku xigeenka jaamacaddu ahaa qaybta akadeemiga aniguna waxaan ahaa faculty baan ka ahaa amiid baan ka ahaa kulliyadda tarbiyada muddo dheer waan soo wada shaqaynay horta waxbarashadiisu waa caynkaas shaqadii aan soo qabanay muddo dheer baanu macallinimo iyo lecture baan ku shaqaynaynay oo saaxiib ahayn oo ka wada shaqaynaynay muxuu ahaa jaamacadda Kismaayo khaas ahaan marka waa inta goorma isbartay Xamza Cabdi Barre waxaan baranay 2000 markay ahayd baan anagu isku baranay horta waxaan isku baranay waxbarashada bay ahayd waxbarashada intaan isku baranay aan wada joognay 2000 bay ka soo bilaabanaysaa waxaad nooga warantaa dabeecadihiisa iyo waliba shakhsiyadiisa shakhsi ahaan sida uu yahay adigu ka taqaan Xamza Cabdi Barre horta waa macallin jaamacadeed baan isku baranay maamul waan wada ahayn marka haddii aan dabeecadiisa wax kaaga tilmaamo horta waa ninkani waa nin aamus badan xagga aamuska ruux inta ruux uu aamusan yahay la yiraahdo oo hadal gaaban yahay hadal yar yahay waa sidaas midda kaleeto xagga isaga dhaqan ahaantiisa waa ruux ixtiraam badan dadka uu la shaqeeyay wixigeedii intaan ku aqaan waxa weeye calaamado ay dadka hogaaminta leeyihiin oo badan buu leeyahay walaa uzaki ala allah ahad calaamadaha uu leeyahay Xamza Cabdi Barre waxa kamida horta waa shakhsi go'aan leh yani maamul wuxuu ku guuleystaa inuu ruux go'aan leeyahay oo daacad yahay yani aqoonteediina uu leeyahay intaan hadda isaga ku aqaan waxa weeye ruux go'aan leh haddana daacadu la inta camalka aan wada haynay ninka dadka aan ugu jeclaay wuxuu ka mid ahaa yani daacad waxaan ku jeclaay wuxuu daacadnimada hadal gaaban ruux hadal badan oo waxa ma ah waa ruux hadal gaaban haddana go'aan leh haddana yani maamulka lagu jira dad buuba waxyaalo kala yar mashquuliya oo laga yaabaa inay shaqada uu markaa hayo wuxuu jecel yahay inuu dhammaan aqligiisa iyo fikirkiisa oo dhan intuu isugu geeyo sida ugu qurux badan ay ku guuleysan karo camalka uu markaa ku jiray rag isugu geeyo kamid yahay rag dad baa intuu camal yar galo haddana camalkiina wuu hayaa si yar dadbana u yar iska amaadii yar kaadayn haya mise wuu iska yar nasan haya laakiin waa ruux camal hadduu damco inuu qabto camalka isaga wuxuu isugu geeyaa dhammaan aqligiisa iyo cilmigiisa fikirkiisa waxba kalama haro intaan ku aqaan intaa weey go'aanna leh waa gartay go'aan qaadashadiisa iyo tabaacadaha habdhaqanka bini'aadanka sidee uu ku yahay horta wuxuu xagga go'aan qaadashada waatan ku sheegay oo waxa weeye ninkani markii hadii maamul la wada yahay macallimiin la wada yahay waxa aad ka dhax shaqaynaysa waa arda fara badan oo hadii waana jaamacad oo ma arda dugsi hoose iyo dugsi dhexe sare ma rag waaweyn oo kula eg oo marka qaarkood laga yaabo inay ka waaweyn yihiin baad macallin u tahay oo rag iyo haween bale dadka isku wadkooda iyo haddana inaan maamul noqotay waxay ka mid tahay meelaha asaasiyaadka ee ruuxu tababarka ugu weyn ee hogaannimo uu ka qaadan karo isagoo intaan la isbaran wuxuu ku soo jiray qaybtan tacliinta weligii uu ku soo jiray oo intuu xamar joogayba uu ka sii qaab qaadanayay haddana halkan marka anagu isugu nimid aanu maamulka jaamacadda Kismaayo aanu wada ahayn yani inta safarro waan wada galay dibadda waan wada galay oo arinta jaamacadda aanu safraynay iyo shirar aanu banaan ku soo wada qaadanay intaan meeshan joognayna waan hadii maamul baan waan wada joognay waxaan isleeyahay yani tilmaamihii hogaamin ay lahayd Xamza Cabdi Barre wuu lahaa oo
ruuxu waxa dilaayay maamul waxa weeye ruuxu inuu labacleeyo go'aan u qaadan waayay waa waxyaalaha ruuxa dhaawaca ama yani maamulka uu haya iyo arinta uu markaa gacanta kula jiray waxyaalaha dhaawaca ka mid ah inaad laba bogleyso oo go'aan qaadan weydo go'aan uu qaataa waa ku fiican yahay walibana aad ugu fiican yahay midda kaleeto daacadnimadan uu ku fiican yahay waa nin daacada markii laga yimaado hadii ruuxii waa nin de Soomaali dhaqanka ugu fiican horta wadaadnimo u leeyahay oo waa nin wanaagsan oo musalli oo waliba xaafidul quraana ta haddana maamulka markaad isku jirtaan ixtiraamka iyo wuxuu muujinayaa waa ruux hadii yaa la sii shaqeeya haddaad la shaqeyso ma nacaysid sababtoo waxa weeye go'aamada uu qaadanayo iyo midda kale wuxuu kaloo isagana sifo kale u leeyahay waxa weeye wuxuu ogol yahay oo aad waliba ugu fiican yahay la talinta marka tira arinta sax ma aha ama sida ma aha dadka ku madax adayga ma aha waa ruuxa la tashi buu leeyahay la tashiga marka tiraado hatta fikirkiisa fikir ka bedelan aad soo jeedisay dadka go'aanka qaatay ama tanaasulo hadduu maslaxa kula arko ee waliba tanaasulo way ruuxa yar ma jaraha adag ma aha aad buu ugu fiicnaa xagga كسوكو شقة معلمات وذا قبتين ما جرت شغل كلا وذا قبتين حمزة عبد حمزة أنتوا هذا جبلان وكشقين هي هذا وجد دورشين كوها قدوميها محكمة السرين هذا بأن شوقهم بانها ده أخين دورشين أنا يمت يقولين لكن يعني قابك وحوذن أركيني ama doorashadii suuqa soo dhaldhalaa iyadoo khilaafaadka aduga uu jiray aday waxaad ka dareemi kartaa yani arin adag oo dad fara badan ay dhinacyaha kula haystaan inaad ka soo dhalaashay waxay ka mid tahay muxuu ahaa ruuxa tijaabooyinka ama imtixaanada la marin hayay ka mid ahaayeen waqti adagoo noocaas uu joogay intii ka horeysay ee hadee meesha aan joognay waxbarashadii FBS ku jiray kamid baan ahaa muxuu ahaayay waxbarashadii iskuuladii sare ragii soo kiciyay baan kamid ahay inta uu afeen isku jirayna waanu isnaqiinay oo dad hadee hal muxuu ahaa fildika wada shaqeynayo waxbarasho baan wada ahayn marka inta waxbarashadaas isteebyada kala duwan iyo intan dambeetay Jubbaland uu joogay ee aanu wada joognay ee uu shaqeynayay hatta inta marka inta ka horeysay jaamacadda hatta markaan joognay waqtigii dawladii muxuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf waqti Cabdullaahi Yuusuf Jubbaland ama Kismaayo ragii yimid ee maamulka ahaa buu kamid ahaa ee bangiga loo magacaabay berigaas oo kamid ahaa marka intaas waa isnaqiinay waa gartay hadda ra'iisul wasaare loo magacaabay maxaad is leedahay hal abuur siyaasadeed oo wadanka uu soo kordhin karaa hogaamintiisa wadanka waxbay u taraysaa والله ninka la yiraahdo horta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh horta waan u mahad celinayaa waxaan ugu mahad celinayaa Ilaahay uu waafajiyay shakhsiga uu maanta marxaladan iyada uu doortay Ilaahay uu waafajiyay waxaan saa u lahayn waxa weeye Xamza Cabdi Barre ma aha dadka qurbaha ka yimid ee muddo badan ka maqnaa Soomaaliya gudaheeda ma aha waa nin Soomaaliya dhex joogay oo qolqol jooga ka warhayo ahaa walibana ka warhayn kaliya ma aha ayadoo ay xaaladdu culus tahay ragii waxbarashada intuu guntiga dheeshiisa ka dhigay kiciyay buu ka institutionno fara badan oo waxbarashada ku saabsan buu ka soo qayb qaatay oo jaamacadda ka sameeyay asaaskeedii iyo FBNST daladii guud ee waxbarashada beriga intayna dawladdu jirin bay shaqeynaysay oo kuwaligiiba tacliintan uu ku soo jiray marka waxaan isleeyahay nin ayadoosan amni jirin awood oo ruuxa kaleete muctadiga ku soo xadgudbahay isaga dafciye aan jirin yani xaaladdu Soomaaliya ay saatahay kala dambeyn in jirin ninka intuu institution noocaas ka shaqeeyay waliba muxuu ahaa guuleystay oo arintan ka soo dhalaalay wadankana dhex joogay wuxuu garanayaa dhaqanka Soomaalida qaabka ay hadda u fikirayaan hatta rag hadda joogayeen ruux waxa fiican ruux waxa jira intuu wadanka ka safro muddo ka maqnaa laga yaabo Soomaalidu qaabka hadda ay u fikirka ruuxu isku bedelaa in yar isku bedelaa marka iyo dhaqan yar oo arkay isku bedelaa ninba wax la intuu dibadda jiray sanado badan hadda qaab dhaqameedka Soomaalidu iyo lakabyada qabiilada iyo deegaanada iyo yani nooca inaad macluumaad badan ka haysataay
waxay kugu kaalmaynaysaa inaad adoo og macluumaadka aad ka haysato gobolka iyo dadka iyo waaxaha dadku isu saaran yihiin macluumaad badan markaad ka haysato adoo macluumaadka ku birinayad go'aan sax baad qaadanaysaa waxaan isleeyahay marka Xamse Cabdi Barre joogitaankiisa waddanka uu dhex joogay ka soo shaqaynta uu qaybahan tacliinta ka soo shaqeeyay ku guuleysay qaybta tacliinta nooca ku soo guuleystay waxay u sahlaysaa asoo qaybta siyaasadda ilaa berigaana ku dhex jiray intii Cabdullaahi Yuusuf ka dambeysay ku dhex jiray waxaan isleeyahay arrimahaas oo dhan oo la isku daray waxay u siinaysaa awood fara badan inuu ku guuleysto muhiimadan loo xil saaray laana wuxuu og yahay dadkii iyo deegaankii iyo qaabkay u fikirayaan waxaan isleeyahay markan Xasan Sheekh iyo Zaid markii la isku daro Xamse la isku daray labadaasi waxay muujin karaan successful ah iyo sameyn karaan oo Soomaaliya siyaasadeeda ku saabsan oo indhaha laga ridaynin yani waxaan isleeyahay aad buu indhaha uga riday oo waxaan aad buu wuxuu ahaa yuu meeshii la rabay uu dhigay baan isleeyahay ninka la yiraahdo Xasan Sheekh doorashadiisa oo Xamse Cabdi Barre uu doortay